xildhibaan maxamuud xasan gudbaaye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dhibaatooyinka uu ka geystay wabiga Shabeelle degmooyinka hoos yimaada gobolka Shabeellada Dhexe. hadaladiisii waxaa ka mid ah sida tan: bismillahirrahmanirrahiim rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah maanta shirkan jaraa'id waxaan u qabanaynaa dhibaatooyinka wabiga Shabeelle uu ku soo kordhiyay degmooyinka gobolka Shabeellada Dhexe sida Mahadaay, Jowhar, Balcad oo si ba'an ay maxaa la yiraahdaa biyaha ugu socdaan wabiga Kadub iyo wabiga Kabari. degmooyin fara badan oo kale oo koonfur naga jiro oo baa ku degmo xildhibaanada qaranka ka soo jeeda Hirshabeelle sanadkada qaranka ka soo jeeda Hirshabeelle maadaama aan nahnay xildhibaanadii maxaa la yiraahdaa Hirshabeelle ayaga ay yihiin xildhibaanadii halkaas ugu matalaya qaranka in ay maanta codkooda ku biiriyaan dhibaatada ummadan Shabeellada Dhexe haysato dalagoodii baaba'ay, guryahoodii baaba'ay, xoolahoodii baaba'een cid u hadlaysaa aysan jirin. maxaa la yiraahdaa waxaan codsanaynaa in ay arrinkaasi ka hadlaan maxaa la yiraahdaa dhibaatada taagan buu tagaan ummadda barakacaysa ama dhibaatada ku socotana ay dul istaagaan insha Allah ta'ala. annaguna sidaa aragteenba waa taaganahay, waan u qaylinaynaa. cid kastoo wax qaba kartana waxaan leenahay walaalihiin dhibaataysan isoo degmada tan kaleenta dowladda dhexe, dowladda federaalka, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa inaysan dhigin dhibaatada meeshay u sii socoto maxaa la yiraahdaa gurmadka loo fidiyo dhibaatada meesha ay ka timiday oo aheeda dhinaca waqooyi ama Shabeellada Dhexe ha noqoto ama ishay maxaa la yiraahdaa ha noqoto Hiiraan ha noqoto wabiga ilaa wuxuu ku yimaadaa waqooyi. dhibaatadan waxay ka timaadaa waqooyi. dhinaca waqooyi waxaan codsanaynaa in gurmad degdeg ah lala gaaro. dowladda dhexe waxay wakiil ka tahay dalkoo dhan, waxay mas'uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed. annagu waxaan leenahay kanaalka haddaasan laga xirin meesha uu biyaha ka wado lagama difaaci kara meesha biyaha ku socdaan. marka dowladda dhexe sida ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dhibaatada gadaal ay ka timiday gadaal meesha ay ka timiday in la xalliyo, nala soo dul istaago, arrinteena la arko. khaasatan madaxweyne Farmaajo waxaan ku leenahay madaxweynuhu. sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo markii la doortay in uusan wali marna afkiisa ku dhawaaqin fatahaadahan ka dhacaya gobolka Shabeellada Dhexe uusan wali lugtiisa geynin. xataa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne aan jecelnahay ayaa tahay wali ma aanan arag Shabeellada Dhexe adigoo soo dhex maraya, wali ma aanan arag adigoo dhibaato ka taagan ka hadlaysa. waxaan ka codsanaynaa waliba kaasi codsanaynaa in aan maxaa la yiraahdaa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Shabeellada Dhexe haysato in aad il gooniyo ku eegto. waxaan ku leenahay arrinkaasi il gooniyo ku eeg. dhibaato ka taagan dadka mas'uuliyadiisa adiga wax laga weydiinayaa, maalinta qiyaam adag wax laga weydiinayaa. waxaan ku leenahay insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku dhiban tahay, shabeellooyinka ha noqdaano, jubbooyinka ha noqdaano ishay maxaa la yiraahdaa Hiiraan iyo ishay maxaa la yiraahdaa dhibaato ka dhacaysa ama fatahaad biyo qab ha noqoto ama fatahaad webi ha noqoto lagu eego gurmad loo fidiyo ummadda dhibaataysan ee geedaha dul saaran. iska daa carrab madoobe waxay biyihii soo galeen carrada caddeeda laga qaxayaa. marka carra cad oo sidaa ogtihiinba daqiiqadaha biyo ku jiro karaan aad ogtihiin waxay noqdeen geedihii yaa qalalay, uwaartii yaa baxday, hantidii maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed ee ku leeyahay carra cad waa ku baaba'een. marka waxaan codsanaynaa insha Allah ta'ala in il gooniyo dowladda dhexe ay ku eegto.